dalka Soomaaliya waxa uu ahaa dal sumcad iyo sharaf ku leh guud ahaan caalamka oo idil. Sidoo kale dalku waxa uu soo dalxiis tagi jiray qoomiyadaha kala duwan ee ku kala nool dunidu, maadaama waddanka bilicdiisu uu ahayd mid indhaha way soo jiidanayaan. Xagga amniguna uu ahaa mid la isku halayn karayo, balse nasiib darro laga soo bilaabo sanadkii 1991kii burburkii dowladdii dhexe uu hogaaminayay Allah u naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre, dalka waxa uu martigeliyay dagaalo sii daba dheeraaday. abaaro saameyn ku yeeshay dadka iyo dunyada intuba. Dhibaatada ugu adag waxay ka soo gaartay dhalinyarada Soomaaliyeed. Dhalinyarada qaar ayaa waxay wax ku baranayeen marxalad adag, iyagoo heerka wax ku baranaya ayaa dhibaatooyin fara badan waxay ka soo gaareen dagaalada aan kala joogsiga lahayn ee ka socday gudaha waddanka Soomaaliya, halka dhalinyarada qaarna noqday kuwa ka barbar dagaalama dhinacyada siyaasadda isaga soo horjeeda ee gudaha waddanka Soomaaliya. Dhalinyarada qaarna waxay ku geeriyoodeen saxaraha u dhaxeeya Suudaan iyo Liibiya intay ku soo gudu jireen socdaalkooda ku aadanaa ka soo baxsashada dhibaatada ka taagan geega Soomaaliya. Dhalinyarada qaarna waxay marti u noqdeen Yaxaas kadib markii la rogmatay doonta ay la socdeen oo ay ku marayeen xeebaha u dhaxeeya Liibiya iyo Talyaaniga iyagoo doonaya inay u soo talaabaan qaaradan Yurub. Barnaamijkani socdaalka golay waa barnaamij aan ugu talagalay inaan u kuurgalo xaalad nololeedka ay ku nool yihiin dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurba joogta, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qaaradan Yurub. Ayaan waxaan booqday gobolka Bayer ee dalkani Jarmalka. Ayaan waxaan kala kulmay wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdilaahi Xasan Cali oo aan kula kulmay hooygiisa. Ayaan waxaan wax ka weydiiyay socdaalkiisa ku aadanaa imaashaha qaaradan Yurub. Xasan Cali Axmed waxaan ku dhashay gobolka Shabeellaha Dhexe degmada Jowhar. waxbarashadayda ilaa waxay gaartay daras 8 kadib waqtiyaaba iska dhacday, yani aniga da ahaan intaasaan kusoo gaaray. waqti badan Soomaali in badan ayaan joogay oo noloshayda waxay iskaga salaysneed dadka meelaha iskaga tahriiba ama Yemen ama Sacuudiga, dhulkaas ayaan iskaga tahriibi jiray. waxaan soo baxay 2010 ayaan waddanka Soomaaliya ka soo baxay. waxaan imaaday dalka Imaaraadka. asigana waddanka Imaaraadka garoonkiisa waxaan ku sugnaa 7 habeen kadib waan ka soo dhoofay. waxaan imid dalka Suuriya waxaan joogay muddo 15 cisho kadib waxaan u gudbay waddanka Turkiga. Turkiga kuma sii idlaanino, sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan ugu sii baxay. doon baan raacay, waxaan galay waddanka Gariiga, magaala madaxdiisa Atina oo dhibaato badan ayay iska leedahay. ma dhaanta Soomaaliya joogeeda waxa ma dhaanta, inkastoo Yurub ay ku roon tahay ammaankaas kelima ayna wadamo qaarkood waxaas Soomaalida inaad joogtaaba roonba hadiiba waddan meel kale aad tagays. bis sidee ahaata aniga Turkiga waan kasoo gudbay. waxaan tagay 2010 bishii 2 waxaan tagay waddanka Sweden. 4 biloodan ku noolahay. dib ayaan ugu soo noqday waddanka Sweden. waxaan imaaday waddanka Jarmalka 2010 bishii 7. 2010 bishii 7 waddanka Jarmalka ayaan iska dhiibay. alxamdulillah, ilaahay mahadiis waan ka helay hamiga aan lahaa iyo wixii aan intaasba aan u soo socday. sharci ayay ahayd bis iyo meel aad nabadgelyadaada aad kula noolaato. marka Cabdi Fataax lama koobi karo ta dhibaatooyinka waxa lama koobi karo. dhibaato way iska jirtaa, yani marba qof waddankiisa hadduu uu ka soo tago waddan kale, يعني أسيقونا قفونو كدلين أما قري أما نظام درو، لكن سأل قبسي بلشة أيها أخبار سيدات ولا قبس الله هيد إلا يعني هو كلا آيات كتمادي هو كلا آيات التمادي لا قبسي بدن أيه وباهم تها أيضا نفتك هذا. بريبا واحد على سكول ياركن لايدري أو سيدات دوتش كأيه هذا سبراكن إن شولا مركا سكول كيان هذه نموليبو سؤال بدن أيه لويديا sida aniga igu qofilneed. waxaan aaminsanaa in nin waliba gobolka uu ka yimid iyo qabiilka uu ahaa inuu sheeganayo, laakiin salayaab waxa uu noqday qofka dhan la dhahay fiyoya community, yani intee baad ka timaaday adiga waddankiisa iyo sheegana iyo gobolka meesha aniga qabiilka aan ku darayna. ha ahaata tan kale ugu daran Yurub, yani runtii dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin khasaarooyin badan inay kala kulmeen, laakiin run ahaanta aniga waxaan aaminsanahay in faa'iido ay tahay. waayo erga kali aad ka faa'iideyso waxay tahay waddanka wuxuu yahay. aniga maalintaas soo baxay yani waxaan ogahay yani waddan qiimo badan inuu si ugu la fadhin, laakiin bulsho weyn oo waddan jecel marka aad u timaado waa dareemaysaa waddankaada qiimaha iyo qiirada uu ku gelinayo.
waxaad arkaysaa qof bilaadan calankiisa meel kamid ah inuu ku arko uu oynayo ama uu istaagayo ma garana waxaa laga yaabaa calanka inuu taagan ama muusigada calanka nin waliba wadan waliba wuxuu leeyahay astaan calankooda lagu garto marka astaanta calanka lagu garanayo haddii tan Soomaali ay tahay waan naqaanaa Soomaali calankeeda iyo astaanteeda waan naqaanaa haddii ay tahay waxaa laga yaabaa in aan anaga hore aan iskaga socoleen ama qiimo badan uusan yacni noogula fadhin beri dhexdaas ayaa dhacday yacni gobolka aan jooga aniga Bayer festival gobolka aan deganaa waliba Ferrisbrook waxaa ka dhacday festival Africa sanadkiiba mar lagu qabto waxaan 7 dhalinyaro ah waxaan tagnay meeshii markaan galnay waxaan aragnay calamo caalamka Afrikada kala wadamada inta jirta calamo ah oo la iibinayo nin waliba wadankiisa calankiisa uu iibsaday anaka waan garawayna markaa in calanka wadanka aan iibsano ama yacni hiddiil dheer aan u sameeyna calanka wuxuu yahay dareen markaas ayuu nagu dhashay calanka wuxuu yahay iyo ogaashihiisa cabdilaahi ayaan waxaan wax ka weydiiyey qofku markuu joogo Afrika uu yimaado qaaradan Yurub waxa uu ku arkayaa dhaqamo fara badan iyo waxyaabo badan oo ka yaabiya oo markuu joogo Afrika uusan arki jirin adiga ahaan cabdilaahi maxaad kala kulantay qaaradan Yurub waxyaabaha aad ka faa'iiday maxay yihiin inta joogtay wadankani Jarmalka ama dalalka kale aad sheegtay aad soo martay ee Yurub waxyaabaha kuugu yaabka badnaa ee aad la kulantay maxay yihiin maalmaha kamid ah waxaan u safray faranka formel dhahayo oo ehelada ay degan yihiin bas jamac ayaan raashin mid hore anigoo dabeecad waxaan aqaanay Soomaaliyo in saxanka wax lagu wada gurto la wada cuno midabka gidsan dhaqan kale oo cusub ayaan u soo galay waxaan arkay saxan bariis oo ku jiro saxan qudrad ay ku jirto oo nin waliba yacni intuu leeyahay uu ka guranayo waan lahayn anaga dabeecadaas oo yacni waxa waaye raashin gacantaan gelinaynaa waana reebaynaa laakiinse dhaqanka dadka wuu bedelmo yacni waa laga tegay reerka raashinka ina meel lasii dhigo la keediya ayaa loogu talagalay bas waxaa suurta gashay yacni in aan raashinka meesha ka idleeyo saxankeena aan ugu istaago ilaan waan cusbahay dabeecadihii iyo dadkaan yacni mudday degayihin waa dad 20 sano yacni wadanka ku noolaa markaan baxay kadib ayaa la yeero lay dhahay Cabdalla maxaa jira maxaa saxanka uga tagtay soo lama dhaqayso daba joogto may dhaqdo markaas kadib lay dhahay war adiga fiir dhaqanka sidaa ma saxanka wax ku cunto waa adiga inaad dhaqartaa marka faa'iidada kaliya maanta Jarmal aan ka haysana midda koowaad aniga waxay ila tahay wadan jecel hadda dadka ay barteen wadanka wuxuu yahay yacni dhaqankii oo leesal wada fahmiyo guryaha naagta iyo ciyaalka iyo walaasha iyo ayada aan lagu dhaafin oo adiga boqodaada aad ka gashid aad karsato cunada iyo yacni respect dadka inaan respect siiso yacni anaga ma aan garan jirin ama qofka inaan foodayno ama waxyaalo badan hadda wadankan waa nimaaday dhalinyaro ay leeyihiin sida anaga oo kale ah maanta waxa laga yaabaa wadankan qofka yimaado inaan dhahno wargaalkan muxuu ahaysaan inaan foodayna laakiin anaga respect aan nala siiyaa waxaan u maleynayaa maalmaha kamida midda kale ugu yaabka badneed waxay tahay bas baan raacay baskii kursiga aan fadhiyo kursiga ku xigay ayaa banaanay qof ayaa ii imaaday fadlan ma soo fariisan karaa uu dhahay ilaa welcome aan ka dhaho soo fariisan aan dhaha yacni ma uu soo fariisan tixgelintaas weyn yacni anigoo dhan wadanka aan lahayn kursiga waliba aan ku fadhiyo kursigiisa kale ninkaas uu lacagta soo dhiibtay reerka ay gaarsiisan tahay respectada qofka bini'aadamka loo samaynayo waa mid yacni la yaab badan ma samayn lahayn runta maanta Soomaaliya haddaan ku noolnahay yacni waxaa laga yaabaa habar weyn iyadoo istaagan aniga inaan iska fariisan lahaa marka 100% waxaan u maleynayaa dadka qaarkii dadna way ku qasaaraan oo dhibaato waaye laakiinse badanaa inta qaarkeedna yacni waaye aragnimo gooni ayay ka arkaan cabdilaahi aan u soo noqono dhanka guurka dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbo joogta khaasatan kuwan Yurub maxay siinayaan isdhihi kartaa dhibaatooyin ka hortaagan xagga guurka kale cabdi fatax horto dhalinyarada maanta jirto guurka aad iyo aad ay ugu dhibaatooyin yihiin taasoo keenayso ugu horanti gabadhii adiga waad isfahanteen waxaa imaanaysa waalidka beri ka maalin markii aad guurka aad ku heshiisaan gabadhii reerkuu yahay intuu ka yimid intuu degan yahay lacag ma leeyahay dhibaatadii intaba way ka jirtaa
hase ahaato gabagabadii markii aad reerkii in aad la xiriido aad reerkii wanaajisa aad ugu talagasho waxaa lagu dhahayaa 2,000 oo euro 3,000 oo euro ma haysaa nin dhalinyaraad tahay yacni waxba sidaas ma haysid waxaad ugu cararaysaa intii aad xaaraan aad gali lahayd yacni waxaad sidaysaa mid xalaal ah samayso runtina waalidiinta aad iyo aad ay ugu dhibaan dhalinyarada maanta xagga guurka markii la dhaha dhibaatooyin badan ayaa ka jirta gabadhi sidoo kale ayadoo nin u baahan xilligeeda gaartay waxaa lagu xirayaa waxaa la dhahayaa nin hebel mayaho lacag ma haystaa marka dhibaatada jirta maanta qabiilkii weli daba socotaa marka muhiimadda waxay tahay anagoo dantayna wada garano yacni aan fahano shareecadayna inay ogashahay xitaa gabadha mararka qaarkood masaajidada in la geeyo yaa gabadhan guursanayay inay wacan tahay laakiinse runtii soomaalidayna aad iyo aad ula xun tahay ereygaas qofkii aad dhahdo gabadhaada yacni masaajidkee yacni wuu iloobay khayrkii dhammaay ayaa la iloobay wuxuu ku dhaha gabadhayda miyaad baartay maanigaa nin nasab aana ahayn kulley waxaan ognahay nasabka iyo boonka waxa ah ninkii jannada laga waayo in ninka nasabka uu yahay ninka jannada galo ninkii laga waayina uu boon uu yahay marka dhibaatada dhalinyarada haysta midaasay u badan tahay midda kalena yacni runtii dhalinyarada badanaa ma aysa akhrisan ama ma tagaan maktabiyada yacni diinta ah oo sida hadda kitaabka riyaal saalixiinka oo soojatul xuquuqeynka la dhahayo waxyaalo badan uu guriga ka bedelaya qofka hadduu yacni akhrista baalkaas buuggaas marka dhibaatada jirta taasaa ugu weyn oo u sabab ah guriga inuu baabaro intaan la joogay cabdilaahi ayaa sidoo kale waxaan weydiiyey markuu joogo xaafadda waxyaabaha uu qabto mararka qaarkood kaligayga cayaaro mararka qaarkoodna aniga ayaaba yacni 2 qof iska dhigo mar computerkan la cayaara waayo intaas haddii aan la sameynno waxaa wadankaada aan eena joogtaa waxyaalo badan aan maqli jirin ayaan wadankan ka dheef stressa ahaayo ilaa haddana kelmadaas yacni nafsi ahaan waan arkaa yacni mararka qaarkood waan qashuucaa nafsadeeda su-aalooyin badan ayay u weydiisaa marka waxaas in la sameyno waa qasab kacab iftax sidan ku sheegay mararka qaarkoodna akhbaaraadka ciwaanadan iska fiirsada oo yacni wadankii xaalad degan kuma jiro xaalad xun ayuu wadanku ku jiraa ilaahay hanuu hagaajiyo wadankan marka mararka qaarkood wadanka wixii kusoo ziyaaday iyo wixii horumar la gaaray iyo waxyaalahaas ayaan ka fiirsadaa waxaana rajaynayaa sanadkan sanadkiisa kuwii dalkooda nabad iyo barwaaqo iyo bashbash kula jooga inaan noqono ilaahay aan ka baryaynaa ugu dambeyn cabdilaahi adigoo mahadsan runtii waxaa jira dhibaatooyin xagga salaadaha iyo shaqada ama iskuulka ah oo ay badanaa la kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool qaaradan Yurub adiga ahaan waxaad iga warantaa habka aad isku waafajiso salaada iyo iskuulku ugu dambeysana waa salaada marka hore salaada sideedaba mar waliba waqtigeeda in lagu tukado ayay runtahay walow yacni ayna ahayn wadan islaam ah wadanka laakiinse badanaa adigoona aan lagu cariirinayno yacni cidna aana ku dhahaynin salaada maxaad u tukanaysaa laakiinse waxaad dhacdaba mararka qaarkood xitaa salaadaha waqtiga iskuulka aad galaysa salaadaha in lagu aadinayo haddaad shaqaynaysa mararka qaarkood salaadaha lagu aadinayo marka sida badan waan dadaalnaa oo yacni bawsa jirto xilli casirka aniga si wacan ay igu aadan tahay duhurka iyo casirka bawsooyin ayaan helaa banaanka in yar lasoo wareego oo 15 daqiiqa ah
daawadayaal waxaan halkaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii socdaalka goley waxaan maanta idin socodsiinay anigoo cabdifatax goley intaan tan dib aan ku kulmi doono waxaan kaga tegayaa sida inoo geliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadba had kiciya qaarad waliba qoomkeeda qiso walba qarnigeeda waa barnaamij aan ku eegayno xaaladda qurba joogta Soomaaliyeed markay joogeen Afrika waxyaabihii ay ku fikirayeen iyo markay yimaadeen Yurub waxyaabihii ay kala kulmeen kala soco Somalisat TV aadka iga daadigi waayay waxa kamid ah run ahaantii qofka bini aadanka ilaahay waxa uu abuuray inuu caabudo wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun buu ilaahay qofka waxa laga yaabaa inuu intaas oo dhan soo maray oo aan u imi Yurub ina aan adduun soo raadsado laakiin waxyaabaha aan meeshan ugu imi aan ku arkay waxa aan ogaaday in qofka iyo ilaahay ay si kala fogaanayaan waxyaabaha aan aad ka wala yaabay waxa weeye dad masaajid aan ku wada tukano oo muslimiina ayaa waxyaabaha aan ku arkay waxa kamid ah waxa ay ku oranayaan 8 saacadood baan u shaqeynaa maalinta jimcaha kale nalooma ogola inaan masaajid ka tagno qofkuna waxa fiican waxa uu taransanayo hadii iimaanku ka dhaawacmo iyo hadii adduun weydo adduunyada waa la qaatay ay ku qurux badan tahay marka run ahaantii aad iyo aad bay u kala fog tahay waxa dalkeena yaala iyo waxa qurbaha yaala Soomaalida heesba waxay tiraahdaa haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo qof qurba jooga ayuu maanta garanaya in ka soo dhalinyar fara badan oo ay daawanaysa aanay maanta iga rumaysanaynin marka aan caynka leeyahay laakiin haddana qof qurba jooga ayuu baa garanaya wadanimada waxa ay leedahay meel wali joogaanba inuu qurbuhu dhibaato badan yahay inuu maxaa ku dhaca marka aad dhalinyartu joogto wadan qof yar iyo qof weyn baa la takoorayo basaska aan raaci karin si xun ay kula dhaqmayaan ay ku eegayaan wadankaaga aad ku qurux badnayd wadankani yahay wadan dhibaato badan oo barafkiis dhacayo caruurtaada dhashay laga qaadayo hadii ay leedahay ilmihii baa la wareysanay ilmiyaa lagu dilaa miyaa lagu yeelaa oo caruurtaada sabab la'aan laga qaadayo marka dhibaatada Yurub way adagto way badantay waxaan jeclaan lahaa in wadankiina ku nagaataan oo dhisataan oo maxaa ku dhaw qalbiyad cilisaan oo qurbaha iska ilowdaan annagana dhibta nagu haysata ilaahu baa xisaabi kara waxaan ka dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed inay iska daayaan qabyaaladda diin ahaan ma wanaagsana dhaqan ahaan ma wanaagsana qabyaaladu qadactu min naar weeyaan qabyaalada ilaahay wuxuu soo rogay in la isku garto bes laakiin ma aha sida Soomaalidu ay ugu dhaqanta ma aha qabyaaladu waxa loo qabiilku waa wax la isku garto bes weeyaan qabyaaladu halka ay dhigtay maanta weeyaan wadankeena ku weynay qarnimadeena ku weynay hooyooyinkeena ku goobloomeen dadkeena ku baaba'ay tahriibta inoo ku wacan weeyaan qabyaaladu marka qabyaalada in la iska jiro weeyaan oo qaran iyo qabyaalada waan qarannimada laga raaca weeyaan iyo danta Soomaaliyeed laga raaca weeyaan dadka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ummadda Soomaalida inuu ilaahay isfahansiiyo inuu ilaahay afkaransiiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay wadankeena nabad nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay Soomaalinimada iyo qarannimadeena iyo sharafteena iyo magaci Soomaaliyeed ilaahay inuu noo soo celiyo iyaan ilaahay ka baryaynaa markaasi wadanka qurbahana dib iyo dheef buu leeyahay inkastoo ay dhibtiisu badan tahay waxa lagu leeyahay wadankaas afraad ka soo qaaday oo aad xaq ku leedahay wadankina wax nolol kuma haystid waxa lagu siyaa lacag professional oo cuntadaada iyo jiifkaaga ah wax barasho la'aan adigiyo macnaha ku xisaabtan jiray subaxdii dad Afrika joogto shaqayna u jarmaato ama profession wax un abaabusho male tan waxa dhici kara in habeenkii soo jeedo wax muraajacada ku soo jeedo maalintiina iska hurdo أنا waxaan jeclahay in aad iyo aad kala duwan tahay fikradii aan ka qabay markii aan Afrika joogo Yurub iyo tan aan kala kulmay markaan imeen Yurub aad iyo aad lahaa kii arday inuu waxbarashadiisa iska wato kii mustaqbalkiisa ka wadanayaan inuu mustaqbalkiisa wato qurbo inayna u soo ordin qurbaha inaan faa'iidada loogu soo ordaynayna oolin aniga hadda tusaale ahaan aniga ka iska hadlaya qurbaha markaan aniga aan wadankaydii joogay si qatara way ila ahayd wadankaygina waa nacay waxaan u soo ordayay qurbaha sidan hadaan mooday uma soo ordeen TV walba tayadiisa wari walbana way aragnimadiisa waa barnaamij aan ku eegayno xaaladda nololeedka qurba joogta Soomaaliyeed markay joogeen Afrika iyo markay yimaadeen Yurub ka daawo Somalisat TV